qodobka labaad ee aan doonayaa waxa weeye maalintii aan halkeen kaga tagay 2020kii waqtigeen corona ku jirnay waxa isku keen dambeysay anagoo waxyaabo badan xaqiijiyay isla markaasina bilaabay jaamacadda maxadka shaqaalaha dawladda oo aan sanadkan ka qalin jabinayo marka sheekada haddaan halkaa ka bilaabo waxaan idin la wadaagi doonaa markii koowaad hamigaygu wuxuu ahaa maadaama aan saxafi doonayo inaan noqdo waxaan doonayaa in waxbarashadana dhanka saxaafadda inaan heer jaamacadeed ka gaaro taasi may suurtagelin sababtay igu suurtageli weyday ayaan caawa doonayaa inaan idin la wadaago meel kalena maan kaga sheekayn arrinka maadaama jaamacadda Hargeysa markii koowaad ka qalin jabiyay aniga oo dibloma ka qaatay waxaan doonayay inaan degree ka qaato marka way igu adkaatay sababtay igu adkaatayna iminkaan idin guda galaya anigu ma ihi lama mid ihi dad badan oo waxbarashada si formal ah ama si waxbarashadii asaasiga ah soo qaatay maadaama xanuunka igu dhacay uu sabab u noqday inaan waxbarashadii ka haro oo aanan 8 ka bixin form 4na ka bixin waxa qasab noqotay inaan jaamacad raadiyo waxaana qasab noqotay in shahaado jaamacadeed loo baahdo jaamacadda Hargeysa maadaama markii hore iyadu darbiga noo jabisay inaan bilaa shahaado diblomka kaga qaadano markii dambe balanqaad ahaa aanu haysanay diblomka naloo tixgelin doono may suurtagelin mana noqon inaan geediga cusbaaye degree-ga ama bachelorka aan sii wado maalmaha kamida ayaa markii aan jaamacaddii dhameeyay waxaan la xiriiray isla jaamacadda lafteedii waxaan doonayaa inaan waxbarashadeedii jaamacadda degree-ga aad ii ogolaataan idinkoo og inaan bilaa shahaado ahaa maadaama mar hore ii sheegteen inaad diblomkaygan ii tixgelin doontaan sidii aan ka filayay may noqon jaamacaddiina waxay samaysay in arrin ka duwan ay la timaado oo ah inaan shahaadadii ay must tahay waxay igu tiri jaamacaddu waxaan kuu samayn karaa oo keliya inaan warqad kuu qorno recommendation si aad ula tagto xafiiska imtixaanaadka marka xafiiska imtixaanaadku wuxuu sameeyaa warqad loo yaqaano u dhigantada dadka waxbarashada ka soo habsaamay ama dadka waxbarashada iyagoo waaweyn ama qixi oo kale dad baa jaamacadaha dhiganayay ama iskuulada dhiganayay dadkaas ayaa ku dhigta u dhigantada jaamacadda Hargeysa warqadii markaan ka qaatay waxaan la tagay xafiiska imtixaanaadka ee qaranka waxaan la kulmay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka ee qaranka markaan u tagay raali ahaada cilad farsamo oo dhanka mikrofoonka yar haysatay iminka laakiin si fiican baan u hadli doonaa markaan xafiiska tagay waxaan ula hadlay si laab furan wax kasto aniga igu saabsanna waan u sheegay inaan bilaa shahaado ahay inaan doonayo inaan degree-ga soo galo laakiin maalinta waxaan ogaaday in waxyaabo badan aan si legal ah ama sharci ah wadankeena aanay uga shaqayn daacadnimadeedii iyo laabfurnaanteedii aan maamulka xafiiska u muujiyay may noqon mid midho ii dhasha may noqon mid wixii aan doonayay ii rumaysa balse waxaan kala kulmay wejigabax aad u weyn taasi oo sababtay in aan dhowr jeer isku dayo in aan uu ii sameeyo jaamacaddiina waxay ku tiri ilaa aad warqaddaa keento processkan cusub ama degree-gan cusub ma bilaabi kartid waa la isku kay tuurtuuray jaamacaddiina waxay ku tiri warqaddaa soo qaado gudoomiyihii laftiisuna wuxuu igu yidhi maadaama markii hore aad diblomka ka dhiganaysay jaamacadda ay kuu ogolaatay inaad bilaa shahaado ku dhigato aniga maxaad iga soo doontay miyay sidii markii hore ay kuugu sameeyaan aad u samaysatid marka halkaa arrin marayo waxaan arkay inaanay arrinkaasi suurtogelayn waxaanan dib u laqay candhuuftaydii waxaanan ka tegey anigoo hungaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka waxaanan ku laabtay gurigaygii maalmo kadib waxaan bilaabay qorshe kale oo cusub oo ah inaan jaamacad kale aan geli karo anigu markeygii hore waxaan jeclaa inaan jaamacadda Hargeysa ka dhigto saxaafadda laakiin caqabadaha ii sheegay baa iga hor istaagay haddana kamaan hadhin inaan shahaado jaamacadeed oo degree ah soo qaato
taasna waxa ii khasbayso waxyaabo badan oo ay ka mid tahay markii koowaad in qofku inuu maadaama waxbarashadii formalka ahayd aanan soo marin dee kuma noqon karo inaan waxbarashadii dib u soo bilaabo oo halkii ka soo bilaabo laakiin in bal aan dadkiina aan wax la qabi karo dee wax si xeega u noqoto ilkana u nabad galaan marka waxaan bilaabay jaamacad kale raadinteed jaamacaddan iminka dhammaynayo oo sanadkan ilaahay fadligiis aan ka mid ahay ardayda ka qalin jebinaya ayaan processkeeda galay oo badi laga yaabo inaad wada garanaysaan oo ah maxadka shaqaalaha dawladda badanka shaqaalaha dawladdan ka mid ahaa maadaama wasaaradda warfaafinta ka shaqeeyo waxaan la hadlay nin agaasime ka ahaa markaas iminkana laakiin weli xil sii hayo oo ah gudoomiyaha quality controlka mukhtaar maxamed cali ayaan u sheegay waxyaabaha aan kala kulmay jaamacaddii hargeysa iyo waxaan ka doonayo oo ah maadaama uu madax iiga yahay wasaaradda warfaafinta isagana ay shaqadiisa tahay in shaqaalaha boosaska ay qaadanayaan maxadka shaqaaluhu maadaama ay si free ah shaqaalaha loo siiyo inuu igu daro mukhtaar si fiican buu ii soo dhaweeyey wuxuu igu yidhi maxamedow kooto ayaan kuugu xidhi doonaa booskaaga cidina kulama tartami doonto sidii baanan booskaygii u raadsaday jaamacaddii baan tegey maalintii koowaad waxaan sii qaatay shahaadadii aan ka qaatay jaamacadda hargeysa ee ahayd dibloomka markii koowaadba markay saa u eegeen runtii waan yar cabsanayo waxaan islaa talow tan armay iyaguna kugu diidaan laakiin may dhicin wayna ii qoreen wayna ii tixgeliyeen sidii baanan ku bilaabay processka taas baana keentay inaanan waan waayey waa run inaan saxaafadda barto jaamacad ka gaadho iimay suurtogelin laakiin waxay ii suurto gashay maanta inaan insha allahu sanadkan anigoo jaamiciya aan jaamacadda ka qalin jebin doono waxaana sharaf ii ah dad badanna way la qabi karaan anoo duruufo badan ay igu gadaamnaayeen inaan qalin jebinayo anigoo aan soo marin waxbarashadii formalka ahayd ee asaasiga ahayd inaan arday asaagay oo sanadkii aan la bilaabay sanadkii ka horreeyey waxbarashada dugsiga sare ka soo baxay iyo qaar double degree-aba inaan wax la bartay oo aanan halka horas laygu yeelan taas baa aniga fani ah sharaf ii ah wax weyn ii ah idinkana idiin noqon doonta markaad sheekadeedan dhegaysataan midaad wax kala dhex bixi doontaan waa sidaan rajaynayee qodobka labaad aan u geli doono waxaa ka mid ah afar qodob baan ugu soo talagalay inaan halka kaga hadlo laba ii hadhay qodobka koowaad magaaladan burco la yidhaahdo waxyaabo badan baan wadaagnaa waxaana ka mid ah waa magaaladii koowaad ee markaan imi isoo dhawaysa waxaan uga jeedaa weligay layma soo dhaweyn oo layma sharfin burco horteed markaan imanayay 2020kii anigu maalin baan ku kaftamay hargeysa waxaan joogaa 14 sano waa run waa magaalo nolosheeda wax badan tartay wax badan aan ku qabsaday waxyaabo badan ila qabatay haddana waxaan ku kaftamaa markaan heerkaasi la joogo weli waxay igu dhahaan reer ceergaabaa tahay lahjadeeda markay maqlaan laakiin waxaan dhahaa haddaan berigii burco ku noolaan lahaa maanta reer burcaan ahaan lahaa layma dhaheen reer ceergaabaa tahay markaan tegey ceergaabo dhowaan ayaa waxa dhacday inamo aanu asxaab nahay oo doonayay barnaamijkayga soo dhaweyntiisa inay ka qayb qaataan ayaa waxaan u diray video layga sameeyey maalintii burco laygu soo dhaweynayey dabadeetana waan tusay waxaan ku idhi bal magaaladan ka soo jeeday soo dhaweynteedu maxay noqon doontaa burco oo aanan dee u dhalan laakiin dee dadkaygii ay qayb ka mid degan yihiin ayaa saa layga soo dhaweeyey dhiirigelintay ka qaateenna dee waad wada aragteen sida ceergaabo layga soo dhaweeyey idinkaana sabab u ahaa in magaalooyin badani ay soo dhaweeyaan oo ay sharfaan qodobka ugu dambeeya aan doonaya inaan kaga tago waxa weeye anigu dhowaan waxaan soo wadaa oo ii soo bixi doona buug aan noloshayda ka qoray oo waxyaabo badan oo aanan idinla wadaagin ay ku jiraan iyo qaar ka mid ah waxyaabaan idinla wadaago laakiin intan panelka aan ahayn oo dee ka faahfaahsan buug dhowr boqol oo page baa soo baxaya
laba ujeedo ayaan ka lahaa ujeedada koowaad badanka buugaagta dadka laga qoraa waxa weeye dad waaweyn oo laga yaabo xusuusihii ay nolosha ka lahaayeen wax badan ilaaway laakiin anigoo dhalinyaro ah waxyaabo badan oo caqabado ay la kulmay oo aan xasuusanahay oo aan si wanaagsan u qoray oo aan noqon karo maanta haddii qof caqabada ka timaado inuu dhiirigelin ka qaadi doono qodobka ugu dambeeya meelnaba aanan ku qarsan oo aanan la gaban waxa weeye anigu maanta waxaan joogaa meel aan naftaydiina wax taray naftaydiina ka dhigay mid dadku ay tusaale u noqon kartaa waxaan doonayaa maadaama heerkaas soo gaadhay in dhaqaalaha kooban ee buugga iga soo gala aan dhakhtar dabadeed ku raadsado taas baa keentay inaan buugga qoro intaas baan caawa doonaya inaan kaga qayb galo maadaama ay tahay markii koowaad ee aan ka qayb galo bandhigga buugaagta ee Burco oo kalkii afraada waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii halkan igu casuumay oo igu horeeyaan Sakariye iyo Xamse iyo kooxda la xidhiidha carwada buugaagta ee Burco iyo idinkoo si wanaagsan idin dhageysanayay mana doonayna waqti badan ka qaato aad baad u mahadsantihiin